بالرجب baa la dilay masjid dhexdii baa lagu dilay ruux muslim ana waa la dilay marka sheekha wuxuu ku sheegayaa markuu gaalaysiinayo dhulalkan de ku hareeraysan iyo gobolada iyo kulli reer xijaaz waa kan reer maxaa ku dhacaya reer najdi markale ومعلوم أن أهل أرضنا أي أرض نجد dadkeena degan najdi iyo أرض الحجاز waad ogtihiin buu yidhi waa si muuqatay idinkugu muuqataa الذي ينكر البعث kuwa inkiraya qiyaamo inuu jiro oo laysu soo saari baa aad uga badan kuwa rumaysan saa ma fahmaysaan macnaha dadkan jooga riyaad iyo hareeraheeda iyo xijaaz waa maka iyo madiina dadka ku nool intooda badan say u badan yihiin ma rumaysna in laysa soo saari doono qiyaamaha yuu sheekhu leeyahay oo macnaha xilligiisii uu soo baxay 200 sano ka hor qarnigii 18aad buu sheekhu ka dhex leeyahay dhulalkii xarameynka in intooda badan ay rumaysnayn marka qiyaamahan yahuud iyo kristan bay rumaysan yihiin waxayn karay male in yaro falsafada kala qaatay mooyaane marka halkan wuxuu ku gaalaysiiyey marka macnaha sababta si la sii banaysanaya dadkan inaysan ahayn dad muslimiina okay ciwaankan aan u dan lahaa maanta inaan aad ugu sii fogfogaadama warabin waxay ahayd muhiimadu dadka oo lagu dhexlaayo masjid dhexdii silsilad noocaasaan doonahayay inay ii furanto oon soo qaato oon dadyowga masaajidka dhexdiisa lagu leynaya muslimiinta taariikha hore kama hadlayo waxaan hadda Soomaali Maryoolay ka dhacaya dhulkeedii garan laadihiin abtir bay leedahay in dadka masaajid lagu dilo meesha lagu sujuudahay dadka inta loogu soo galo lagu gaado lagu dilo waa taariikh fog weeyaan salaf bay leedahay marka asalku halkaasaan rabay inaan aad u aado laakiin hadda hordhac yar bay iga yara noqoto waan yara fogaadan male laakiin dhib male wayna ku socon marka sheekhu halkan uu ku gaalaysiiyey dadkii deganaa xijaaz iyo halkaa inaysan rumaysnayn badee nebiba uma iman buu leeyahay miyaa ma garanayo cidba ma soo gaarin miyaa calaa kulli xaal sheekha yaa kutubtooday ku qoranta meel kale kama iman kutubtan baana laysu akhriyaa iyo kuwo kale marka sheekhu warkiisa halkaasuu ku cadeeyey qoladii reer najdi calaa kulli xaal waxaan rabaa markaa nin lagu dhex dili doono masjid dhexdii oo ka mid ahaa muslimiintii reer Cuyayna ama xaakimkii ninkii xukumayay magaalada Cuyayna la yiraahdee ninka amiirka ah ee deganaa magaaladaas qaraabana way yihiin sheekho isu dhawaayeen xagga abtirka iyo xidid iyo maxaa la yahay iyo qaraabo xidid iyo xigto intuba way yihiin sheekh ninkan al-amiir waxa la yiraahdaa Uthman bin Muammar waa ninkii xukumayay magaalada Cuyayna awood badan buu lahaa sheekh waagii uu soo baxay iyo baaqi uu waday ragii madaxa ku qaatay buu kamid ahaa ee aqbalay ee soo dhaweeyay sheekha ayiri ku soo dhaw magaalada Cuyayna amiirka Cuyayna marka dacwadii uu la qaatay sheekha uu aqbalay barnaamijyadii isla wadeen duulaamay galeen dad bay gaalaysiiyeen waxba adigu sidii caadiga ahayd dadna waxaa la yaabay markii uu dacwadan qaatay culimadii deganaa najdi ay waaweynayeen soo tiriyay magacyadoodii midka ugu darnaa wuxuu ahaa uu sheekhu waa horeba sii gaalaysiiyay in la yiraahdo محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي الأحسائي نينكا يا آد عكت أصاري أميركي عيينة أكويري ودي أهي محاكو علي عقل علن يا علم علن يا دين علن يا صانق ولها وها احنا سمعنا إنسان وروحنا حق معها وحنا صح معها سيبو كودو في صدي نينكاس دعوة نينكا كغسعتي أحساء كإيمانيسي شيخ نهرو قاليسي نينكاس معناها wadaadka halkaa joogay axsaa soo diraya fariimaha u soo diraya amiir Uthman bin Muammar ee u aqal celinayay leh ka joog kooxdan aad raacday sax maaha dadka inaad dhiigooda saa ku banaysataan sax maaha marka fariimo noocaasna ay ku dhacayaan way ku soo socdaan mar walba ragii ay yaqaaneen way hore dadna aduu ninkii Muammar Uthman bin Muammar barnaamijkii waqti ka bacdi waxay la noqonaysaa inuu waxani dhan ay ka raran tahay oo sax ahayn عثمان بن معمر أميرك عيينة أي حكتدي يا قرابة هايان محمد بن عبد الوهاب وحو دريمة يا مركز شيخي محمد عبد الوهاب ها
inuu ninkan gaabis badan samaynayo uu ka gaabiyey siduu ahaan jiray cagajiid fara badan iyo ka dareemay deedna xudxudho lama waaye qolyahan wararka qaadqaadee ku dhex jira markaa meel walba saa ugu dhex jira yaa warkii ka qaadaya oo dareemaya ninkan inuu isbedelay oo fariimo uu ka helo ninkii aad gaalaysatay ibnu cafaaliq ahaa sheekhii al-axsaa ku noolaa sheekhii axsaa buu waraaqo ka helaa wuxuu ka helaa waraaqo ku saabsan iyo dhambaallo ku saabsan inuu ka istaago waxan aynan xaq ahayn oo dhiigga islaamku uu xaaraan yahay oo waxan dacwadan aad ku kadsoontay ka soo noqo marka risaalooyinkaasaa soo gaara marka war noocaasa sheekhii iyo loo gudbiyey daadna sheekhii marka wuxuu u yeerayaa raggiisii ka mid ah oo ku nool markaa dee xaakimkan hoostiisa jooga cuthmaan bin mucamar hoostiisa waxaa ku nool rag dadka wararka qaada raggiiba u yeeranayaa iyo rag kale deedna way imanayaan Cuyayna kasoo baxayaan Dirciya meeshii sheekha uu xaruntiisii weyneyd bay tegayaan deedna halkaas sheekhu wuxuu kasoo saarayaa fatwa ku saabsan Cuthmaan bin Mucamar xaaladiisa in go-aan laga qaato marka ibnu Ghannaam oo ka mid ah culimada waaweyneed ee sheekh Maxamed Cabdulwahaab taariikhda ka qoray ardaygii sheekhana ah ibnu Ghannaam yaa ka warbixinaya lama tazaayada sharru Cuthmaan balalay marka Cuthmaan sharkiisii kolkuu weynaaday dee maca sharkiisa waxaa weeye uu ka gaabiyey risaalooyin wuxuu ka helayaa meelihii dadkii cadowga u ahaa sheekhay kasoo horjeeday dacwadiisa iyo culimadii hore ee dhulka joogay oo diidanaa baaqa uu wado sheekha lama tazaayada sharru Cuthmaan kolkuu kordhay uu ziyaaday uu sii butaacay dee sharkii Cuthmaan uu nagu batay calaa ahli tawxiidi uu ku batay welibana intanadan tawxiidka haysatee maxamed cabdulwahaabi intii raacday dee waa markaa وظهر بغضه لهم وموالاته لأهل الباطل لأنه يسوى موقتي عرضي وأقبي دتك حقا يجعلك كالقعلك أقبو دتك كسهر شيدا دعوذة وتبين الشيخ صدق ما كان يروى عنه وده شيخنا يوعد عطي ويحل شيخ يجري كوينكي أما كتري كتان ويحل شيخ هي كل شيخ وعد عطي نكن إنه انتصنين deedna waxaa u yimid magaalooyinka dhan baa laga yimid deedna waxay ka sheegteen oo ka baqeen inuu balanfur ku sameeyo oo muslimiinta ahlu tawxiidka laayo qaala shaykhu xiina idan liman wafada ilayhi min ahli al-Uyayna kolkaasuu sheekhii wuxuu yidhi dadkii uga yimid wafdigii uga yimid Uyayna uriidu minkum al-bay'ata ala diini illahi wa rasuulihi wa ala muwalaati man walaahu wa mucaadaati man xaarabahu wa cadah inaad igula ballantaan igula gorgortantaan bayca adag ila gashaan inaad diinta ilaahay iyo rasuulkiisa aad u gargaaraysaan oo aad xiriirinaysaan oo jeclaanaysaan intuu alla jeclaaday iyo rasuulkiisa iyo dadka tawxiidka oo aad nacaysaan oo colo noqonaysaan dhammaan dadka kasoo horjeeda islaamka marka ayaga isku wadaatay iyo tawxiidka waa iyaga waxay kasoo horjeedaan kolka ayaga intoodaas walow annahu amiirakum Cuthmaan amiirkiina Cuthmaan allah ka dhige Cuthmaan ibnu Mucamar xaakimka Cuyayna wey كان الله كدغ أميركيني يتقانين دي كان الله كدغ إن بقناها أجريسان وحي إلهي عدو جيسة يا رسول جيسة يا أهل التوحيد فأعطوه على ذلك الأيمان وأجمعوا على البيعة لما أنت ضويسيا وينك أقبلين وينك قدون نبعدين وانا نقول بلان إن أنفلنا وحن نقول قرقرتان تي أولا خيرة إلا أنت أهل باطلك إن الله يضدك kasoo horjeeda baaqa aynu wadno inta ogole jecelna aan jeclaano falama taxaqaqa ahlu islaam marka maqtalkii sheekha iyo normal marka qaabka loo dilayo oo ah qaab falxun oo siinaba aan waafaqsanayn xeerarka ama sharciga alle iyo rasuul حاكم العيينة مقتل الأمير عثمان بن معمر فلما تحقق أهل الإسلام ذلك تعاهد على قتله نفر كل يهبصدان أهل الإسلام كل هالوده وإنت وضن ده اسكو أركع اسكو لبسكع اسكو سيدا أو أركع ويان الشيخ وياهي هجامية محمد عبد الوهاب تعاهد على قتله وحا اسكو بلانصدو إن الدلان دل كيسة نفر وضينا قرمي دليان فلما انقضت صلاة الجمعة قتلوه في مصلاه بالمسجد كل في صلاة جمعة لقبحي قتلوه ويكدلن في مصلاه بالمسجد برتي وكنت كذي جمعة وكسو جودي بيكدلن وكجورعين وأنا مسجد كده حديث مركلنا وحلين فلما سلم من الصلاة
kolkuu ka salaama naqsaday salaadii qaama ilayhi man dakarnaahu faqataluuhu waxaa dilay raggii aan soo sheegnay wa min mashaahiiri aladiina tawallow qatlahu dadka ugu caansanaa ee qaatay dilka qoorta u ritay waxay ahaayeen maxamed bin raashid ibraahim bin zayd albahaliy wa muusa bin raajix wa kaana dalika fi muntasif rajab min hadihi sana 163 hijriga markuu waxaana la dilay rajab miyaad garanaysaan bisha bil rajab baa la dilay masjid dhexdii baa lagu dilay ruux muslim ana waa la dilay wa jaraa'im saddex ah baa halkaa ku jira yaysan kaa fakan oo xeerar waaweyn oo sharcigii alla ah baa dhabarka laga jebiyey kow xeerka koowaad waa maxay qatlu nafsi almuxaramati xeerar ay dejisteen wadaadadu markaa iyagu xeer alla noqon mahaya dee waa in la kala saaraa waa horena waa meelaha waa idinkugu sheegay xeerka alle xeer wadaad iyo xeerka sharciga alle shaqa iskuma leh marka sharciyo wadaadoo fara badan baa dadka diin looga dhigay waa hore xeer wadaad marka naftu asalde waa xaaraan dilkeeda bilow ilaa dhamaad ilaa xaalado yar mooyaane oo u baahan markaa dee iyaduna cadaymo iyo maxkamadayn iyo isdifaacid iyo magaranaysa sida qur-aanka inoo sheegi iskala soo bood maaha cadho anaa kugu qaba iyo xaqdi dabeedna aan diinka ku adeegsado saasuu yidhi kadh waxaa maaha dee sharci alle xeerka wadaadka marka waa naf la xarimay asal fii masjidin aw fii salaatin nabiga sal alla alay wasalam xadiis baa ka sugan saxiixa uu yidhi waa hore inii nuhiitu can qatli lmusalliina kolkay damcaan inay ay dhahaan nebi allow kan ma dilnaa uu yidhi waryaara ma waalan tihiin warsaa u eg oo kale maxaa idinka sii ah anigu waa layga reebay qof tukada inaan gacantayda gaarsiiyo dilo tukada inaan taabto inii nuhiitu can qatli lmusalliin wuu tukadaa khalaas arrimo diin waan ku dilahayaa murtad weeye waa sheegasho aan meel lahayn iyo iddicaa iyo dulmi dee dadyo xoog sheegtay markaa inay maxkamada ku samaystaan iyagii una aday maganaysa qof muslima in la dilo waynu isla garanay asal waa xaraam uma asalaatu qadaasa weeyaan iyaduna waxay leedahay dee ixtiraam weyn iyo makaano weyn bay ku leedahay salaada ama guri ha ku tukado ama suuq ha taagnaado isoo tukan haya salaadu waa inay kaa joojiso siduu nabigu sheegay can qatli lmusalliina waa la ii diiday qof tukadaa inaan dilo waa la ii diiday xataa munaafiqiintii ugu gaalsanaa ee qur-aanka kusoo degahayay lama taabanay nabiga sal alla alay wasalam iyagoo qur-aan lagu sheegayo gaalnimadooda cadda urku gaal wada ah kulligood saadiyada iskaga tukanayeen lamana taaban jirin salaatu ljumucati bay dileen yowma aljumca fi masjidin fi shahri illaahi rajab miyaad garanaysaan bilaha xurmada le wey horta soomaalidii ma loo sheegay bila xurmale inay jiraan aan la istaabanin oo la dagaalaminba dhanka qayladaas aada nooguma faafin xataa haddii ay jirto intaan ka warhaya dee ilaa yaraantayda haddaan dib u qaado bila xurmalaa jira oon la isdagaalin kama dhex maqal meelihii dadka laga wacdin jiray maba garan jirinba yaraantayda bila ay ixtiraami jireen jaahiliintii quraysh ee carbeed xataa waxaa la dhihi jiray qofka haddii uu arko ruuxii aabihii dilay oo bilahaas hadduu arko xataa muun taaban jirin say u qadarinayaan xeerar baa ilaaliyaan iyo ballamo laakiin annaga ilaahay baa qur-aanka noogu sheegay ina ciddata shuhuuri cinda allah 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم أفر بالوضع وحاجرة لسي حرمي وحوال با وحاران سي أحوال سي أتكيبة دي أدان إنا السميسان أوكي دقال الله كامل دولان إلا قادة دي لما أقول أفرتها بلود مياد قرنيسان وبلاها هجرية المسلمين توليدا إلا يلهدو ذو القعدة ذو الحجة محرم iyo bisha la yiraahdo rajab afarta bilood saddex way xiriirsanta midna waa gooni rajab baa la yiraahdaa afarta bilood alle agtii waa bilo xurmo leh karaamo leh ha dagaalamina dagaal ha qaadina ha duulina fahmiisaan baan u malayn marka bilahaas uu ilaahay karaameeyo afarta uu goonida u yeeshay falaa tadlimuu fiihinna anfusakum war dulmiha samaynina iyo ardaalnimo iyo nijaaso dambiga la gala bilahaasi wala balaabmayaan xasanaadka la sameeyaa khayrkana
وإلا والله ما يعني وبلا الله ده إلهي بيدي وبلا يجي منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قرآن مركز ضح قاعدان وأخرسان وساء ولحمرتان وأركسان فإذا انسلخ الأشهر الحرم كل كي بحان يسيبتاني تغان بلاها أشهر الحرم كو أفرتها بلوده بلاها حرمضة له كل كا دقالك قلع ودقالنا واحد سيسين سكي عليا كل كا لو أركي فسيحوا في الأرض 4 أشهر كل كي إلهي ياع قليه نقال هذا هاي سكا سعودة دقالك إذن كده حيوي 4 أشهر أفرتها بلود وإلهي قرآن كان كوش هاي نقول دقع أفرتها بالنسية فسح إلهي بابدتك سيواه هره baa manaha dhaqan geliya oo naga sii daaya ama u fasaxa dadka idinka soo horjeedo idinkoo dabaqaya fa idan salakha al-ashhur al-hurum idinkoo dabaqaya minha 4 xurum meelo badan buu ilaahay ku soo celinaya waxaa ka mid ah inuu ilaahay yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxilluu shacaa'ir allahi wala ash-shahr al-xaraam ha xalaalaysanina ha ku tumanina xurmooyinka ilaahay waxyaabaha uu xarimay ولا الشهر الحرامنا بلها حرمة لا وإلهي سيحرمي لا تستحل القتال في هذه الأشهر الحرم والصومالي أفرتها بالباجرت أفرتها بالكذا البضع وإلا شيئنا يقعد نقر رجان ونسكن نحسو عنه مركب أفرتها بالدمادان نانسوان نقلنا نسوان عررنا انتنا دمان وبالله إلهي واهر ومد السيي وإيان كفار وعرب فليني سي nagu fuliya annagana 4 bilood idinkoo dabaqahaya sharciga alle inaad nadishaan bilaha ashhurul xurum hada sheekha sidoo halkan ku bilaabay oo kale bilowgan macnaha salaf bulaahi markaan ilaahay dilka masjid dhexdii dadka in lagu laayo waxba la xeerinin bil xurmal ilaahay xurmay insaan xurmale masjidullah masjidka yaa tagasiisaba ahabbul bilad ila allah masajiduha sabahin meelaha uu ilaahay ugu jecel yahay masjidka meeshu ilaahay ugu jeclaa insaanka lagu gowracay أنا أقول له حصيه بشوف بإلهي بيبقى يا يسكت تاجه هيان بشو الله ويري بإلهي جيوي شهر الله محرم شهر الله ذي القعدة شهر الله ذي الحجة شهر الله رجب رجب تنفت كذا أنا أنه حد قد بينه يوم مركع الله إلهي بان با ودوانين مركع شيخ أنه حل قد لي في مسجد يجا قرية تاريخي هنذا وهابية رجدي وعصلاء bahashaba iska lahaa yaa qoray intaan la tegin buugaag kale iyo meelo kale marka waxaana dhex fadhiya meesha hadda inay qoraan oon waxba la iska weydiinin baaba ayaan darro cadde inaan madaxa kor ugu qaadin iyaga waa nin ka mid ahaa oo ka istaagay qaabkii u wadeen waa intaa un deedna waa la gaalaysiiyey hay gaalaysiin iyo qorax tukanayo masaajidka dhexdiisa ku tukanayay bal isqabadsii adigu meelgee xaroodaad wey marka salaf bay leedahay bahashani in dadka masaajid lagu dilo qofka masaajid ka soo baxay waa la dilay uu sii socdo waa lagu dilay uu ka soo baxay waa lagu dilay xagee bay abtirkeedu leedahay waa kade qarrigiis deetona bilowgiisii iyo sheekhu fulinaya ragaas uu diray waana lagu fuliyay dilkii ragii fulinay kuwa faqataluhu fi musallahu bil masjid fi shahri llahi rajab insaan walibana tukan hayo muslim iyaga ba sheegayay masaajidka ku jiro oo tukan hayay baa waana dilnay maraajicda aad u noqonaysaan oo heli kartaan taariikh ibn Ghannaam sheekhan wuxuu kamid ahaa ardaydii sheekh maxamed cabdullaah wey taariikh najd ibn Bishr weysna magaciisa waxaa la yidhaha Uthman bin Bishr ninka kalena Xuseyn bin Ghannaam waad helaysaan taariikhda kale isna kitaabkii kalena sheekha waa ka mu'alafaat sheekh al-imaam محمد بن عبد الوهاب ايو كتابي كلا اسناها الصحب الوابلة على ضرائح الحنابلة مراجع ويجرته او ها ادقون نقون كرتان مركزتك ان كان شيخ قرابي هاي انت وادين شيخي عثمان بن معمر لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون قرآن قال له شيء سما قل أن حيرني إنه حمد بلن يطلمه يقرابنمه مرك إلهي يقول لك محقيري وأولئك هم المعتدون كل جود بابا أبدا يقول لي حد جذب كسميه بابا يجوا يجيب كل جود مرك واحد يقول قفني الله نقع في دم بيه إنه أصيبنا صح لكن واحد نقول إنه واسك تاريخ أنت حتى فيه كي من ما لكن عصري وهو أفرت بلود إني
jabhadaha hubaysan ee jooga waddankanagii xabadda naga daayaan. dowladuhuna ama nidaamyada jira iyaguna inay intaa fahmaan ay ku waaniyaan oo yidhaahdaan war bilii xurmada lagu jiraaye nin walba uu aagaaga ku jir weerarada aynu joojino iyaduba waa caqli waxbay dhaantaa. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.